dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan ku eegaynaa arrimaha galmudug. Magaalada Hobyo waxaa dhawaan kusoo gabagaboobay shir ay lahaayeen mid ka mid ah beelaha deegaanada galmudug. sidoo kale magaalada Dhuusamareeb waxaa ka furmay shir dib u heshiisiineed oo beelaha deegaanku ay ku leeyihiin halkaasi taasoo la sheegay inay noqon doonto halka ay ka imaanayso dawladda xigta ee galmudug inkastoo dawladdii horeba aanay weli xilka wareejin isla markaana mugdi iyo khilaaf fara badan deegaanadaasi ay muddo ku hareeraysnaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda ayaa u arka in ay lagama maarmaan ahayd in dawladdu arrinta ay fargeliso si maamulka galmudug loo soo dhiso maadaama khilaafku ahaa khilaaf muddo soo jiitamaya xalna uu ka iman waayo dhinaca kale siyaasiyiinta qaar ayaa waxa ay qabaan in dawladdu waxa xalka ka iman waayaba ay ahayd fargelinta ay in muddo ah deegaanadaasi ku haysay haddana ay doonayso in maamul iyada ay wadato xildhibaanadeedana ay soo fusho ay halkaasi ka soo dhigayso barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa ka qayb galaya senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo deegaanka dabcan ka soo jeeda kuna sugan magaalada Dhuusamareeb horena madaxweyne uga soo noqday maamulka galmudug ee dalka sidoo kale waxaa ka qayb galaya xildhibaan maxamed axmed abdidoon oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana hadda ku sugan magaalada Dhuusamareeb kana mid ah xildhibaanada deegaanka laga soo doorto iyo Dr. Maxamuud Maxamed Culsow oo ku sugan dalkan Mareykanka isla markaana ka soo jeeda deegaanada galmudug waa idin salaamay dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka su'aasha ugu horeysan raba inaan dirax dhigo waxay tahay gobolka ka soo jeedaan xaaladiisa kuma warliidin haddii aad soo koobto xaaladda galmudug xilligan maxaad ku qiimeyn lahayd iyo howlaha socda waxaan siinayaa senator cabdi xasan cawaale qaybdiid marka hore waxaan salaamayaa walaalahayga dadka ku jira xildhibaan abdidoon iyo Dr. Maxamuud baan salaamayaa marka labaad su-aashaadii haddaan si daawan uga jeedo waxaan isleeyahay meel fiican baan hadda ay maraysaa mar haddaan shirkii muddada 2 bilood socday Hobyo ka furnaa ee nabadeynta beelaha habargidin uu soo xirmay oo guul ku soo dhamaaday haddee inaan marka midkii halkan hadda ka furmaya insha allahi inaan ka qayb qaadano ayaan u nimid waa mahadsan tahay haye Dr. Maxamuud Culsow runtii horta ugu horeyn waxaan u hambaliyeynayaa Dr. Cabdi senator Cabdi iyo xildhibaanka Sultan Abdidoon hawshii wanaagsaneed oo runtii taariikhiga ahayd oo ay ka soo qabteen shirkii nabadda ee Hobyo iyo kaas oo hadda ku dhamaaday guul aan isleeyahayna inuu wax weyn iyo kaalin waxtara uu ka qaadanayo wax ka qabashada iyo horudhigida dib u dhiska galmudug runtiina hadda waxa weeye galmudug dhismaheedu waxaan u baahan tahay dadaal badan iyo in dadka deegaanka la siiyo tixgelin badan loogana baahan yahay inay maaragtay shirkaas Hobyo wixii ka soo baxay iyo xildhibaanadii ka yimid iyo guddigii lagu doortayba la tixgeliyo talooyinkii ay soo jeediyeen iyo ka qayb qaadashada hawsha dib u dhiska galmudug sida looga bilaabayo Dhuusamareebna talo laga siiyo marka galmudug runtii waxaa hor yaalla arrimo aad iyo aad u culus ama ha ahaato haddee sidii ay adigu ku burburtay iyo haddeertaan sidii ay ku dhismi lahayd ay ka soo bixi doonaan waa mahadsantaha waxaan siinayaa xildhibaan abdidoon ugu horeyn waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo Falastiin iyo idaacadda VOA waxaan kaloo salaamayaa dhegeystayaasha ma dhegeysanaya waxaan kaloo salaamayaa labada saaxiib ee dadka hadda igula jirto salaan kadib su-aashaadii haddaan usoo laabto oo xaalad nooceedii galmudug maraysaa waxaan isleeyahay galmudug maanta waxay maraysaa xaalad fiican markii loo fiiriyo xaaladii hore ay ku jirtay galmudug maanta waxay maraysaa in Dhuusamareeb la fadhiyo oo ay joogaan madaxdii dowladda federaalka ahayd oo ay joogaan madaxdii galmudug oo ay joogaan odayaashii dhaqanka ay kasoo jeeday beelaha galmudug oo ay joogaan ergo
yani gaaraysa 356 ergey oo lagu fariisiyey 89 kursiyo min kursi 4 qof ah. marka galmudug waxay kaloo maraysaa galmudug beelihii wada deganaa ay heshiinayaan. markii la fiiriyo hadda xaloo kale shirkii prime ministerka uu ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ee lagu heshiisiinayey beelaha walaalaha ah ee 3 sano ugu dambeysay ishaystay oo xalay heshiiskoodii soo gabagabowday. waxaan kaloo aad u qabaa shirka kale oo hubyo oo dee habargudubkii oo kamid ah beelaha kooyinka oo meeshan wada dego oo iyagana ay isugu tageen hubyo oo ay maamul kusoo samaysteen. awal haddii bila adres ahaa jireen hadda guddina kale oo loo raaca soo samaystay. marka waxaa moodaa galmudug inay u jihaysatay dhinac nabadeed, inay u jihaysatay dhinacii dhismihii labaad ee galmudug. marka xaaladda waxaan isleeyahay waa xaalad aad u fiican waana la qabaa madaxda. waa mahadsantihiin. marka galmudug muddo maamulada gobolada hadda markii la fiiriyo inta badan waa hana qaadeen. galmudug caqabadaas jiray ilaa maalinkii maamulkeeda la sameeyey ilaa maanta soo jiitanaya. haddii ay noqon lahayd kala fakar duwanaanshiyaha deegaanka ka jira, haddii ay noqon lahayd maamulkii ahlu sunna asnaa dhinac taagnaa, shirar badanaa loo qabtay, caqabado badan ayaa galmudug ka jira. dadka qaarna waxayba dhahaanba caqabadaha galmudug ayaa qayb weyn ka ah caqabadaha Soomaaliya guud ahaan haysta. hadda marka galmudug isku toosan oo hal go'aan leh ma laga filayaa inay ka soo baxdo Dhuusamareeb? waxaan siinayaa senator Cabdi Xasan Cawaale qaybtii. waayahay falastiin waxa weeye waa laga filayaa haddii hayno aadan fikiraas arrintii loo qabaa. sababtu waxay ahayd dadku wuxuu ku kala maqnaa muxuu ahaa galmudug khilaaf baa ka jiray, deegaanada iyo dadka reer galmudug dhexdooda khilaaf baa ka jiray oo aragtiyaal iyo fakar kala duwan baa ka jiray. sidoo kale waxaa ka jiray mar walba faragelin dawladda dhexe ka socotay oo maamuladii jiray ama ha socoto maamulka hadda jira dalka madaxda kaala noqdo ama kii ka horreeyay ha ahaato. runtii waxaa jiray mar walba waxaa ka jiray faragelin baa ka jirtay. marka iyadoo ay sidaa tahay sababta keentay weeye in muxuu ahaa beelihii 11 ah 5 beelood oo kamid in meel la iskugu geeyo. waxaa la yidhi haana duntay ka talantaa. marka hore dadka bal intii isku dhowba oo waxaa isla fahmi kartaba in nabadeeda horta laga soo shaqeeyo lasoo nabadeeyo. qaybtii hore 5 beelood mar hadday nidaam iyo xeer iyo madax ayaga ka turjumaysa golo ay leeyihiin oo go-aankoodiiba mar haddii la iskugu geeyey halkaana hadda uu ka furmayo kii galmudug oo beelahaasi ka mid yihiin. waxaan isleeyahay waxaa ii muuqata haddii alla idmo rajo fiican baa muuqata. laakiin waa haddii madaxda dawladda federaalka ahi ay sidaas ay u aragto in dadku ay aayahooda iyagu ka tashadaan oo talada iyagu ay qaataan. xildhibaan Cabdi Qaybid waxaa sheegtay in faragelin ay jirtay dhibaato ku haysay. faragelinta hadda ma jirtaa ma dhamaatay faragelinta? waxa weeye hadda meeshaan Dhuusamareeb aan kaala hadlayo maamul waxaa ka jira runtii ka socda dawladda dhexdina Soomaaliya ka socda ayaa meeshaan ciidamadii keenay, abaabulka iyagaa wada, guddiga iyagaa magacaabay. muxuu ahay galmudugna hadda waa ogtahay oo madaxweynaheedii awal meeshaan waa tuu ka tegey oo uu yidhi shaqadii waa tuu asaga intuu warqad oona ka tegey. marka haddii hadda sidii loo dhigo weeye maadaama hadda qayb lasoo eriyey qaybtaanna hadda shirki loo furaayo iyada laftigeeda waxaa la rabaa dadka in si muxuu ahaa daa furan iyagu u heshiiyaan. waa mahadsan tahay. waxaan siinayaa culiso.
siduu horta uu sheegay senatarku deegaankaanu dadka joogaa waxay lahaayeen fursad iyo garasho iyo dadaal iyo niyad sami ay runtii ku dhistaan maamul ilaa maalintii ay la bilaabay dhismaha dowlad goboleedyada oo gaar ahaan galmudugda keliya waxaa dhacday duruufo gaar aha ka jira galmudug oo ah dadka deegaanka degan iyo sida ay maaragtay muxuu ahay ama ka dhashay ha ahaato shabaab soo banbixidiisii hay-adda maaragtay ahlusunna waljamaaca dhalashadeedii iyo dadka beelaha degan deegaanka oo haddee runtii ah dad aad iyo aad mataqaanaa maaragtay soomaali o dhan masalaya marka duruufahaas gaarkaa waa jireen waxaan isleeyahay markii la dhisaayena khilaafka iyo dhibaatada iyo caqabadahu waxay ka dhasheen in halkii xoogga la saari lahay in dadka waxyaabaha deegaanka ka jira in la fududeeyo oo la xaliyo waxaa xoogga la saaray markaas ujeedadii siyaasadeed oo dawladdii markaas maamulaysa ee ka lahayd inay iyadu ay siiso mudnaanta oo aysan mudnaanta siinin khilaafaadkaas dadkay ku jira inay fududeyso oo wax ka qabato si kastay tahaba runtii waxaan isleeyahay hadda madaxweyneha axmed ducaale iyo markuu yimid xaaf iyo wixii ka dambeeyey iyo shirkii jabuuti dadaal badanaa la galay in dadka laisu soo dhoweeyo walow khilaafaadkii uu jiray hase yeeshee runtii dowladda federaalka oo hadda jirtaana kuma dadaalin in waxyaabihii ka dhashay heshiiskaasu oo dadka qaarkiisa laga yaabe ay u arkaayeen inay dhibaato uga timid ama siday rabeen aysan noqonin inay xaliso maaragtay kuma dadaalin waxay ku dadaashay inay inta ka faa'iidaysato ay khilaafaad kale oo ka culus ay sii abuurto ilaa ay gaartay maamulkii oo dhan inuu dumo oo maamulkii maanta uu maraayo mid haddana dib laga soo bilaabayo 2015 meeshuu joogay in gadaal haddana loogu noqday halkii dawlad u dhiibtay oo sii socota ay ahaan lahayd oo dastuurkeedii iyo waxeedii iyadu maamulata instituushinadeedii ay shaqaynayaan baarlamaankeedii madaxtooyadii guddigii doorashada mataqaanaa maamulkii uu isagu maamulku kale kusii wareejinayo xilkii dhan halkii laga samayn lahay walwalka kaloo hadda muuqdaana wuxuu yahay waxa weeye hadda dawladdiiba federaalka ahaayaa iyaduna gacanta ku qabsatay oo maamulkii wadda markii lasii fiiriyo dabeecadihii iyo sidii lagula dhaqmay dowlad goboleedyada kale waxaa walwalku muuqdaa waxa weeye in sida niyad samidda iyo rajada iyo dadaalka muuqdaa hadeertaan in xagaldaaca xoog leh ay ku samayso dowladda federaalka ayaa walwalkeedu muuqdaa. waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xildhibaan Abtidoon oo isna meesha ku sugan walwalka uu qabo culusow ma ku muuqdaa iyo xildhibaan Cabdi Qaybiyo isaga laftiisa ka dhawaajiyay in fursad labada dhinac hadba dhinac loo wada aadi karto inay hadda jirto caqabadaha inay jiraan waa firsanahay caqabadaha jira laakiin caqabadaha ma ahayn miday keentay mid ka timid faragelin dowladda ay samayso caqabadaha markii hadda yani rabay in la qeexo caqabadaha galmudug waxay kasoo bilaabmeen xilligii la aasaasayay galmudug 2015 aasaasidii galmudug waxaa ka haray oo aan qeyb ka noqon yaraadadii ahlusunna ayaa ka haray taa ayadoo jirta ayaa markii madaxweynihii maamulayay galmudug ee loo doortay inuu tanaasulay oo xilkii iska casilay oo la doortay maamulkii kale ayaa haddana waxaa yimid caqabado iyo khilaaf ka dhex dhashay maamulkii galmudug caqabadaha marka waxay keeneen in madaxweynihii iyo madaxweyne-ku-xigeenkii iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo iskhilaafaan khilaafkaas haddana isagoo jira ayaa madaxweynihii arrin naga maqneyd oo galmudug ka maqneyd oo dhuusamareed ahayd ayuu ku soo daray soo daritaankii kadib waxaa yimid khilaaf ku saabsan taramkii halkaa ayuu marka khilaafka ka yimid waa khilaaf galmudug dhexdeeda ka dhashay waa khilaaf isdiid badan sameeyey oo taramkii xilligii loogu talagalo 4 sano ayuu ku dhamaanaa sida dastuurka galay iyo xitaa wuxuu kaloo khilaafsanay heshiiskii dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay kusoo galeen bruxelles sanadkii 2018 oo iyadana looga soo heshiiyey dowlad goboleedyada xilli doorasho yani waqtiga loogu talagalay xilligii loo doortay gudaha markii dhamaatay in doorasho la galo kahor imaanshaheeda ayaa keenay khilaafka
haddana faragelinta dowladda ay soo samaysa anigu waxaan u arkaa inay tahay mid la mahadiyey mid raalli laga wada yahay mid madaxweynihii la doortay oo raalli ka yahay mid maamulkii ahlusunna halkan ka dhisan ay raalli ka yihiin marka meesha waxaa ii muuqata markii horena caqabadaha taagan inay ahayn caqabado gudaheena oo ku saabsan yacni heerarka la xiriiray marka waxaan isleeyahay hadda anaga galmudug meeshaan aan wada joogno waxaan fiirinaa foundationskii waan haysanaa يعني xildhibaanadii aa la yaqaanaa beeralkii ay kala lahaayeen aa la yaqaanaa kaaramkii inuu dhamaadaa laisla ogolyahay kaliya un waxaa loo baahan inta la isku yimaado xildhibaanadii lasoo xulo dowlad cusubna la doorto waxaan u arkaa marka dowladda inay noqon doonto mid loo aayo waayo number one waa loo dhan oo ahlusunnadii muqneed iyo magaaladii muqneed hadda waa kusoo diran marka labaad processka hadda oo wax ku socdaan waa process loo dhan yahay oo lagu midaysan yahay processka raba dowladnimadana wuxuu u muuqdaa mid xor ah oo xalaal ah hadda fayskan dib u heshiisiinta haddii laga gudbana waxaa loo socdaa in guddi kaloo doorashadii ka shaqeeyay uu soo xilidii odayaasha ay soo xili lahaayeen xildhibaanada lagala shaqeeyo kadibna in loo jeesto dib u xoreyntii deegaanada laga higtay dadkan amnigooda sidii loo soo celin lahay dadkan sidii shaqa abuur iyo wax loogu samayn lahaa waxaa dareemaysaa hadda dadaalada prime ministerka uu sameynayo waxaa kamid ahay hadda xamar markii joogay dadkii siyaasiyiintii loo arkayey inay processka dowladda waddo ka hor imaan karaan ayuu la shiray warbixin ka siiyey xaaladaha jira social media soo geliyeen inay iska afdarteen iskana waafaqeen sida waxoo qabanaya xaalada ay ka yihiin marka waxaan u arkaa arrin fiican oo isku xirana meeshan ka muuqata oo dowlad fiican noo dhalanayso insha allah tacaala haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotaani waa VOA Washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno arrimaha galmudug waxaa ka qayb galaya senator cabdi xasan cawaale qaydiid xildhibaan maxamed axmed abtidoon iyo doctor maxamed maxamed culuso aan ku hormaro senator cabdi qaydiid xildhibaan cabdi qaydiid dadaalada hadda socda sida xildhibaan hadda abtidoon oo meesha jooga uu u sharxay ma ku muuqata adiga in wax wanaagsan ay kasoo bixi karaan haddii dadaalkiina aad ku biirisaan maxaa caqabadaha isleedaha waa ka imaan karaan haddiiba ay jiraan caqabado marka hore falastiin adeer waa annaga haddaanan rajo ka qabin in wax hagaagaan horta ma naadnana waxaan ku nimid in meesha ay muuqan karto rajo inay ka imaan karayso rajadaasi waxay ku xiran tahay shirka hadda wuxuu gacanta ugu jiraa muxuu ahaa xukuumadda federaalka madaxda sare ee qaranka ayaa hadda dhuusamareeb waxaa la oran karaya maamulkeedu waa qeyb dila soomaaliya laga xukumo yani ma jiro mid ay leedahay bulshada reer galmudug xukun iyo maamul ay leedahay ma jiraan odayaashii baa loo yeeray miiska wasiirka arrimaha gudaha miiska la yimid soo socday waxaa muxuu aha ciidamadii booliisku waa kuwii federaalka ciidamada militarigu waa kuwii laga keenay muqdisho waa kuwii soomaaliya muxuu ahayday kuwa marka kuwii commandosku waa ciidan kulli maaragtay hoostaga madaxda qaranka hadday tahay xooga dalka soomaaliyeed iyo taliya muxuu ahaa taliyaha booliiska soomaaliyeed iyo taliyaha nabad sugidda qaranka kulligood waxaa laga xukumayaa muqdisho marka saas ma tahay xildhibaan aan kaa dhexgalo lama jiidana inay gacan ka geystaan see u aragtaa adiga sidee u aragtaa marka loo daayo oo waxa iyagoo sidaas ay tahay oo intaas oo aan u jeedno odayaashii waa la keenay muxuu ahaa guddi baa la qabtay awal oo lagu magacaabay guddiga dib u heshiisiinta waxaa soo magacaabatay dawladda madaxda sare soo magacaabatay haddii aan halkan dadka dib u heshiisiintooda mushkilad magacadi rabtaa ka qayb gasho hadday iyagu wada isku daayo haddii ay taladaasi ay noqoto mid dadka reer galmudug ka soo jeeda ee dhaqanka siyaasiyiinta xildhibaanada senatarada wasiirada maamulkii hore jiray dadkan haddii maamulkan loo daayo waxaan isleeyahay dawladduna ay ciidamadan iyo intan iyo ay gacan ka geysatay waxaan isleeyahay waxbaa soo dhici karaya laakiin hadday arrintu kusii socoto sida ay ku socotay anigu runtii
waxa ii muuqda natiijadii aan filaynay inaysan soo baxayn saas weeye aragtidaydii. waa mahadsantaha. waxaan siinayaa culso baan siinayaa. galmudug mudday dhibaato kusoo jirta, inta badanna dhibaatooyinka waxay ka imaanayeen hal dhinac oo ah in Cadaado iyo Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo ay ku heshiin lahaayeen in xal laga gaaro mashaakilka galmudug. haddii hadda ay dawladdu diyaar u tahay inay fududeyso, soo ma aha fursad ay ka faa'iideysan karaan dadka reer mudug inay iyagana dacalkooda qabsadaan si maamul loo dhan yahay loo dhiso? horta ma qabo ra'yigaas ah in dhibaatadu ay ka dhalatay Gaalkacyo iyo Cadaado iyo Dhuusamareeb midna ma ahan. dhibaatada horta ugu weyn oo hadda taagan oo haddana laftigeeda Dhuusamareeb taagan waxa weeye ballanqaadyo iyo markii hore isku dir ay ayadu dawladda dhexe ama dawladda federaalka ay sabab u ahayd ayaa hadda xal u baahnaanaya, amaba qolo walbaba ballanqaadkii loo sheegay ee hadda daba taagan tahay oo ay leedahay dawladda federaalka ayaa la ii ballanqaaday. Cadaado iyo Dhuusamareeb hadda dadka degan dad walaalaha way wax khilaaf ma jirin. qolo walbana waxaa laga yaabaa haddee inay markaas u tixgelinaysay dana adigu ay u arkaysay inay isleedahay waa gaari kartaa. laakiin haddii dawladda federaalka ay daacad ka ahaan lahayd oo waxa xaqiiqada ama nidaamka dawladeedu la dhiso la rabo ay iyadu taageeri lahayd, dib kuwa hadda maanta meesha uu joogo ma joogin. mushkiladda kale oo taagan waxa weeye ilaa hadda waxaa sharciya oo berina laga sugayaa xilka inuu wareejiyo waa madaxweynihii meesha galmudug oo Axmed Ducaale wey. ilaa hadda ma jooga asagii meesha, inuu yimaado oo mas-uuliyaddiisii uu qaato ayaa looga baahan yahay. hadda shirka la furaayo waa shir seminaara maahane shir ummaddu ay inta ka wada hadasho mawduucyada runta ee dawladnimada galmudug ee asaaska u noqonaya uga doodi maayaan. markaan waxaan rabaa halkaas inaan hal su-aal kaa weydiiyo. dawladdu waxay arrintaas soo faragelisay oo ra-iisul wasaaruhu Dhuusamareeb yimid iyadoo madaxweynihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug is haystaan, iyadoo Dhuusamareeb ay madaxweyne Xaas iyo ahlu sunna ay ku kala tageen, iyadoo intaas ay dhibaata soo socotay. waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada dooda hadda kugula jiraahi gobolkay ka soo jeedaan waana u jeedeen, qofna inta u istaaga ma dhihin arrinta aan faragelino. haddii dawladda ay go'aansatay inay gobol fidiso wax loo dhan yahay ay ka shaqayso, maxaa diidaya? horta runta waxaa loo baahan yahay haddii laga dhigo muuqsan tahay dawladda ay gobol dhigta iyadoo niyad sami haddii loo qaato nin banaanka joogay oo kale, waxaa laga yaabaa dadku inay si xun u fahmaan markaas oo kale. waxa ka dhacay meesha dawladda iyadu sabab ka ahayd, ayadaa abuurtay oo duruufta abuurtay oo labadan qole oo wada joogtay arrinta laisku hayo oo ahayd 4 sano ayaa dawladdaanu shaqaynaysaa. dad cusub oo aan wada shaqayn jirinaa laisu keenay, ha wada shaqeeyeen, sharci iyo dastuurkii ay samaysteenna ha la wado. waxa ugu horreeya hor istaagay waxay ahayd dawladda iyadu ay gaartay. waa kugu soo noqon doonaa. waxaan siinayaa xildhibaan Abtidoon. inta badan dib u heshiisiintu waa in meel hoose laga soo bilaabaa, dadka deegaankuna ay diyaar u yihiin. maamullo iyo dib u heshiisiin iyo shirar banaanka ka yimaada caqabado badan oo hore ay Soomaalida way aragnimo u leedahay laga soo maray. dawladdu gobasha inay furto laakiin dadka deegaanka ay u deyso oo sida shirka Hobyo kale isaga iskiis uu u dhacay in loo daayo dadka oo fursadaas dadka la siiyo. dawladdu soo kuma haboonay si loogu arko wax dadku leeyihiin intii loo arki lahaa wax Muqdisho laga keenay. waa mahadsantahay. su-aashaan intaan ka jawaabin waxaan rabaa doodii hore ay saaxiibadii ka hadleen inaan u laabto marka hore kadibna aan midaan soo galo. midda hore waxaan u arkayaa mar haddii galmudugkii madaxda ahayd ay iskhilaafeen kuwii Cadaado joogay, markii kalena kuwii Dhuusamareeb joogay ay iskhilaafeen oo la kala tegey, maxaa dhici lahay haddiisan dawladda soo fargelin lahayd inaysan waxba noo samaysiinaa imaan lahayd. marka aniga ma baasaysanayo imaanshaha dawladda iyo baraseedka inay liidgarayso, bal waxaan u arkaa gurmad dawladeed inay tahay, gacansiinimo inay tahay meeshii dawladnimada looga baxnay. dawladdu waa dawladdii aan dooranay annaga oo dee ka wada sarreysay dowlad goboleedyada, meeshii looga baxnaa inay shaqada ka wado ayaan u arkaa. taa markaan halkaa kaga gudbo midaan ah dib u heshiisiinta. farkin dib u heshiisiinta waxa waaye dadka iskale caawa la furayaa, markii la furo wadahadal ayaa halkan ka dhici doona. wadahadalka aniga waxay ila tahay waxay u dambaan doontaa waa mid siyaasadeed, waayo isku dhacyo qabiileed iyo isdil oo hadda deegaanada ka furan oo badan ma jirto.
waxa ugu xoogan jiri jiray waxay ahayd arrimihii xeraale ka jiray labada beelood oo walaalaha ay jirayeen inaan la xalin mid u dhaxaysa meesha la yiraahdo ceen iyo balqalna waa iyadana xalkeeda hore loo galay gabagabo waayo marka isku dhacyo qabiil oo dhib ah haddana sidaas oo kale hadday wax jiraan markii shirka berita la furo ayay dadka waxay xor u yihiin inay ka doodaan arrimahooda looga dambeeyo dowladdana waxay siinaysaa support iyo facilitation inay wax u kala qaado waxaa hadda prime ministerka uu u joogana waxay tahay xalay heshiiskii beesha bereed ay wada gaareen diyooyinkii prime ministerka ballan qaaday inuu bixiyo isaga ayaa wuxuu ballan qaaday inuu inta hiirsho tago dadkii soo qaxay oo beriyo jimcaha inta wado geeyo xeraale si ay deegaanadoodii ugu laabteen marka waa facilitation waa loo baahnay waajibkii dowladnimada saareed anigu marka ma baaseysanayo waa waxaan aan ku farsanahay oo aan soo dhaweynayo dib u heshiisiintana wixii ka yimaada ayaan arkaynaa oo odayaashii waa wada joogaan cid maqan lama arko ergadii waa wada joogtaa ayagaa wada hadli doona waxay ku dhamaystaan dowladda sideeteeda ayay u dhaqaaqi doontaa waxaan siinayaa senator cabdi xasan cawaale qaybtii adigoo xildhibaanaha oo siyaasiyiin oo gobolka ka soo jeeda ayaa intaasoo marxalado kala duwan oo dhibaato iyo kala tag ah gobolka ay ka jireen haddii adinka aad usoo istaagi weyseen oo dowladda dhexe ay go'aansatay inay soo farageliso soo halkaas boos uguma banaana dowladda dhexe ay arrinta kula wareegto ama ku hogaamiso waa ku mahadsan tahay su-aal fiican weydi arrinta ku saabsan marka ugu horeysa marka ay timaado faragelin dawladdu haddii ay lagama maarmaan noqoto sideedaba dawladdu waxay dawlad tahay dawladda dadka soomaaliyeed oo dhan oo reer galmudug iyo soomaaliyaba dawlad u tahay marka waxa weeye arrinta tani annaga dawladdii baan ka midnahay anuu senatar baana 8 senatar baa waxaa laga soo doortaa iyo 36 halkan waxaa laga soo doortaa galmudug 44 sanadkii xildhibaanana haddii ay jirto lillahi ay jirto daacan jirto sababta muxuu ahaa isku day laga jira oo la isku dayay oo annagu inaanu shaqada maadaama aan deegaamadii ka soo jeedno annagoon iska khilaafsaneen 44 iyadu inaan wixii dhibaato jira xallino haddii ay suurtageli weyday haddee markaa ordigu inta ka weyn dawladdu yani ayada excuse ka dhiganaysa dawladda markaan kule dawladda ma oranaye madaxtooyada soomaaliya ayaa ka dhiganaysa excuse annagaa waxbay xirsan waayeen iyo waxbay keli waayeen labadii sano ugu dambeysay xildhibaanada iyo senatarada kasoo jeeda iyo waxgaradka ka soo jeeda goboladan mudug iyo galgaduud waxay adeer diyaar u ahaayeen inay isku yimaadaan oo heshiiyaan intaasoo jeer baan annaga dhuusamareeb waa nimid axmed ducaalo jooga waxaa nimid markan axmed ducaalo kaalkacyo annagoo 8 senatar aan ugu tagnay waxaan tagnay meesha la yidhaahdo annagoo dhowr iyo intaas ka badan oo xildhibaanada senatara anaada tagnay marka maxaa xaliseen day bay ahayd in wax la qabto maxaa xaliseen waxay ka xalismayn haddee adiga ul dabada la haysto adiga waxba kuma maaragtay yaambo dabada la haysto waxba kuma fali kartid marka waxa weeye fargelinta aan kuu sheegay oo marnaba aan si bayaana oo si aan leexasho lahayn ayay u muuqatay hadda waa la wada joogaa dadkii ayagu ay si kasta lagu keenay waa la keenay odayaal baa la keenay wax la tashiyo oo dadka ay muxuu ahaa intaasoo 44 ka soo jeeday tala kuma laha hal la keeno hadda waa isku nimid annaga oo xagga shirki soo qabanaa kana nimid waxaan rabnaa inaan weli raadino cayno iyo dadaal iyo dadkaani reer galmudug dadka way ugu liitaan inay ka kacaan iyo dhibaatada haysato ee amnilaana deegaankoodu waxaa haysta shabaab baa iska haysta 10 sano waxaana keenay ma ay awoodi waa inay iska kiciyaane
faragelinta iyo kala qaybinta ku dhex jirta wey. waa mahadsantaha culso waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan abtidoonaan siinaya labadiina waxaad tihiin senator iyo xildhibaan gobolka ka soo jeeda isku aragtina kama tihidiin hadda waxa socda taasi fariinso uma ahan in hawshan socotaahi aysan miro dhal wanaagsan keeni karin haddii dadka deegaanka iyo siyaasiyiintiiniba ay isku waafaqi la'dihiin hal fakar in meesha inta lagu tago xal wada jirana laga soo saaro soo fariin cad uma aha dadka reer galmudug iyo dadka soomaaliyeed ee idin dhegaysanaya in meesha aan loo dhammayn la iskuna raacsanayn waayahay arrintaas ma jirto Falastiin waa isku waafaqsanahay aniga iyo senatarka iyo senatarada kale iyo xildhibaanada kale jooga annagoo wada dhanan joognaa halkan waxaan u wada joognaa waxa waaye inaan qayb ka noqono processka dhismaha galmudug ee socda inaan goobjoog ka noqono dib u heshiisiinta inaan goobjoog ka noqono doorashada qof annaga nagamida horaba inuu dib u laabto ma jiro ilaa dowladnimadii galmudug laga dhisayo haddii la dhisana dee waxaanba diyaar u siinahay farayntii deegaanada inaan qayb ka noqono meesha marka hadda ay marayso iskuma khilaafsanin waa isku khilaafsantihiin hadalkiina adi waxaa u aragtaa inay dawladda doorkeeda qaadato shaqo wanaagsanna ay hayso dadkuna ay ogol yihiin senator cabdi qaybdiidna waxa uu ku leeyahay hawshaan dawladdaa wadata shalan iyadaa faragelisay maantana iyadaa gacanta ku haysa dadka deegaankuna ma ogola isku fakar ma tihidiin hadalkiina soo u dhacaayo marka dhinaca dhismaha iskuma khilaafsanin dhinaca dawladda hoggaankeeda waaye waxa uu cabdi shaki ka qabo waa shaki laakiin waxaan rabaa inaan Falastiin ku sheego annaga su'aasheeda hore waxay ahayd doorkiina muxuu ahaa annaga xildhibaan ahaan hadda ka hor asagoo senatarka ma hogaaminayo statementiyaan soo saarnay oo aan ku taageerino wasaaradda arrimaha gudaha iyo doorashadii in la qabto xilligeedii hadda markii doorashada la qabanayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kula kulannay ciddeysnama gelin inay deegaankii tagaan oo ay arrimahan ka shaqeeyaan marka dee dawladdii annaga u matalayna xildhibaano ah dad magaaladan degana horta shaqada hadda ay hayaan u diray ka codsana qaybna ka waxaa kamid a dee ra-iisul wasaare hadda halkan fadhiisada ruuxadiisa reer galmudug prime ministerkii qaranka ah una dhimrinayo dadkii u turaya raba inuu isu keeno wax sameeyo marka waxaan isleeyahay shakiga uu qabo weli ma gaarin bal aan aragna hadday dhacdo anigu waxaan rumaysanahay inaysan dhicin shakiro uusan jirin dadkana ay xor yihiin odayaashana ay joogaan wada hadalkii laga bilaabo maxaa uu bilaabmaya waxaa la rabaa marka si dhow inaa ula socotaan adinka idaacadaha oo idaacadaha aad la kusaan odayaasha markayo shakiga uu qabo waa mahadsantahay shakiga iska saaro hana imaansado processka socdo waa mid fiican waa mahadsantahay waxaan siinayaa culso shirka hadda waa u socdaa waa lagu kala fakar duwan yahay marka maxaa isleedahay xalku waa uu ku jira adoo soo koobaya waana su-aasha ugu dambaysa horta waxaan isleeyahay in hadda laga dhigo arrinta hadda xaraal oo kale hadda ka dhacday in laga dhigo tusaale horta waxa weeye markay wax dhaceen sanado ka hor dawladduna waa ogeyd fursadihii wax looga qaban lahaayna waxaa hor istaagay dawladda federaalka ee ahayd haddana dhaqaalihii iyo wixii wax looga qaban lahaay oo hadda la bixinayana waxay ahayd wixii markii hore loo diiday dadkii madaxda ka ahay meesha inay ay ku bixiyaan ama ay ku maamulaan ayaa hadda la diidaya taasuna waxay tusaale usii tahay waxa weeye ra-iisul wasaaruhu hadda muddo adigu 40-50 maalmood uu meesha joogaa ra-iisul wasaarena uma ahan galmudug wuxuu dalka dhan u yahay waxaa muuqata inay jirto muxuu ahay dana gaara oo dawladda federaalka iyo natiijo gaara ay ka rabto inay meeshaan ka gaarto ayaa keenaysa waxa ra-iisul wasaaruhu meesha ugu fadhiyaa marka halka maxaa aragtaa marka waxaan u arkaa waxa weeye halka dawladda federaalka inay dadka deegaanka ku caawinto khilaafyada iyo dhibaatada jirtaana inay xalistaan ayaduna dhinaca wanaagsan ay ka istaagto ayaduna inaysan khilaaf kale iyo dana gaara oo ayadu ay leedahay aysan ku dhex darin waa mahadsan tahay waxaan siinayaa abtidoon gabagabadii waaye maxaa xalka u aragtaa adoo soo koobaya halka waxaan u arkaa processka hadda sida u socdo inaan garab istaagno inaan hadda professor culso siduu sheegayo annaga xildhibaanada iyo senatarada halkan jooga ay u istaagaan dadka sidii ay isugu imaan lahaayeen oo waxaa ka dhex jira looga saari lahay system iyo process raalli laga wada yahayna loo heli lahay waxaan kaloo dhihi lahay dadka odayaasha ah ee noo jooga waxaan rabay inaan dhaho inta badan waxaa la fiiriyaa hebel ha la meeleeyo inay qalbigooda ka saaraan hebel ha la meeleeyo ay usoo jeestaan galmudug yaa sanadka bixi kara yaa dadka isku keeni kara yaa dadkan dadka ku jira ka saari kara inay xildhibaanada kusoo xolaan xildhibaanadana madaxweynaha ay dooranayaan ayagana inay sidaa ka fiiriyaan waa markaas markaan gaarayno marka horumar markaan gaarayno dawladnimo markaan
amnigeena soo ceshanayno sidaas ayaan u arkaa xalka inuu yahay waa mahadsanta aan ka wada shaqeyno odayaasha inaan hadda la bilaabno inaan la shaqeyno aan ka shaqeyno maamulkii galmudug inta ku joogta inay wada yimaadaan haddii madaxweynihii uu maqan yahay la yidhahdo soo gal magaaladii awal haddii uga baxay waxaa laga yaabaa awal wuxuu uga baxay klaaskii asagaalishama ay haddana magaaladii gacanteeda waxay ku jirtaa maamulkii galmudug iyo ciidamadii dowladda federaalka marka qof walba wuu imaan karaa oo xor u yahay isna inuu yimaado inaan ka shaqeyno ra-iisul wasaarahana aan ku garab istaagno processkaas u noqon lahaa mid loo siman yahay waana ii muuqataa hadda waa mahadsantahay haye senator cabdiqaydi waya hortin waxaan aniga u arkaya runtii xal waxa weeye anigoo sheegnay statementigii maanta aan kasoo saarnay baan horta warka ku dhama oo ahay horta galmudug hadda ma dhalan galmudug 2015 markii cadaalad iskugu timid hay-adihii markaas yani galmudugtii hore iyo ahlusunna iyo central state iyo xulin iyo xeeb baa isku yimid odayaal baa la isku keenay shirweyne cadaado waa ogeed 450 oday baa la isku keenay ergooyin ah way doodeen dastuur ay ku midaysan yihiin ay samaysteen ay u codeeyeen waxay doorteen markii dambana baarlamaankii bay iyagaa qaybsaday oo aan cidina ku dhex jirin baa iyagu qaybsadeen xubnahoodii uga qaybgelahayey golaha xorbisinta uga qaybgelahayey saasaa lagu qaybsaday awood qaybsi bay ahayd meeshaas awood qaybsiga dadku saasay isku rabeen isma nabcayn isma diidaneen haatana isma nabcaan mushkilad galmudug aan jirin waxay mushkilad u horeynaysaa faragelinta awood aan maaragtay cid kalihii wadato oo iyadu mididii wadato oo dhaqaalihii wadato oo siyaasadii wadato oo qofkay qoranaysa wadato oo xildhibaanka soo socota ay liiskiisii wadato oo odageeda iyadoo hadda soo qoratay xaggee laga maraya maxayta waxaa imaan karaa waxaan qabnaa meesha hadda la joogo haddii loo madax baneeyo dadka reer galmudug haddii loo madax baneeyo ay helaan bida furnaan inay waxaajoodaan wax u qaybsadaan dawladduna waxay tahayba waa dawladdayadii korjoogta aan ka ahaad annaga dhan aan ka ahaadna laakiin dadka in laysku daahiyo aada umahadsan tahay senator cabdiqaydiid iyo dhammaantiinba aada umahadsan tihiin xildhibaan abdidoon iyo gudoomiye culusow oo isagana dooda maraykanka uga jiray waa in salaamaya aada umahadsan tihiin dhammaantiin dhegeystayaal inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu toddobaadkan ku eegnay arrimaha galmudug waxaa ka qayb galayay senator cabdi xasan cawaale qaydiid xildhibaan maxamed axmed abdidoon iyo doctor maxamuud maxamed culusow intaan mar kale dib u kulmi doono dhammaantiin nabadgelyo